waa saddex xaasle ka yimid magaalada Muqdisho oo magaalada Gurceel sun ku cabay kadib markii ay ka diiday gabar uu jeclaa. ciidamada Gurceel ayaa goordhow xabsiga dhigay Xasan Malabsade oo sida la sheegay qaab been ah ku matalay in uu sun u cabay gabar uu jeclaa. Malabsade oo xamar ka yimid ayaa Gurceel yimid sidoo barangi been ah ugu sameyn lahaa in uu sun cabay isaga oo soo bandhigay sawirro isagoo iska dhigaya in uu xanuunsanayo. dhawaan ayay ahayd markuu ka been sheegay inuu saddex xaasle yahay isaga oo baraha bulshada ku soo bandhigay. gabadheeda ugu horeyso weyneed waa tana waxaa la yiraahdaa Caasha Cilmi Faarax waa xaaska weyn ma sha Allah. gabadhaas ku xigto waa marwadeedii labaad Mumtaaz Maxamuud Cilmi Allah waa xaaskii labaad. gabadhii saddexaad oo guriga dambeystiin waa tana mar uu wareysi siinayay telefishinka Universal ayuu ku sheegay in saddexda gabdhood qolqura ay wada degan yihiin midii habeenkaas iska leh iyaga ay iska soo dhax doortaan. warkaas oo markii dambe beenoobay bariyihii u dambeeyay wuxuu ku sugnaa magaalada Gurceel wuxuu haatan jiifaa xabsiga weyn ee magaalada Gurceel. ciidamada ammaanka Gurceel ayaa sheegay in xireen Xasan Malabsade bariyihii u dambeeyay waxaa magaalada Gurceel ku soo badanayay dhalinyarada la sheegay in ay gabdho ay jeclaayeen sun u cabeen taasi oo gaf weyn ku ah diinta Islaamka maadaama ay naftooda halis geliyeen.